asalaamu calaykum asxaabta khaliga ah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee ku akhri karaa message ama fariin la diladgareeyey haddii aad doonaysid inaad akhriso fariin la diladgareeyey ama message la diladgareeyey waxaad si fiican uga bogan doontaa muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar beelkana furo si aad ula socoto wax waliba aan soo dhigno sida aynu la wada socono dadka badankii waxay isticmaalaan social media imo whatsapp messenger meel walba oo fariimo la isugu soo gudbiyo fariin walba in lagu soo diro waxaa dhici karta in fariintaasi qofka uu ku soo dayana dib kaaga daleediyo sababa jira aaweed qofka laba mar fariintu uu kaa daleediyaa haddii fariintii qalad oo error ka galo oo xaraf uu kuu rabin xarafkii uu taabto wuu daleedinayaa haddii warkuu kuu soo diray la xumaadana iyadana sidaas la mid ah uu daleedinayaa hadda qofkan wuxuu ii soo diray hi jai iyo sticker oo carabka saan u taagayo marka uu ii soo diro wuxuu kaloo ii soo dirayaa fariintu markaasaa toos ayay igugu soo dhacaysaa wax walba uu ii soo diro dib buu igaaga daleedin karaa waan arki doonnaa si ay noqon doonto sidan ayuu igugu soo dirdirayaa markuu sidan igugu soo diro fariintii wuu qabtay wuu iga daleedinayaa qofka haddii mar fariintii uu kuu soo diray kaa daleedsho adigana way kaa daleedmaysaa meeshii kuguma sii jurayso way kaa daleedmaysaa oo asiga bes kama daleedmaysa labadiinaba weligaa daleedmaysaa waad u jeedaa hadda laba fariin ayuu daleeday this message was deleted waad u jeedaa tii saddexaadna wuu ku daray haddaba waa u jeedaa fariintii uu kuu soo diray wuu daleediyey sidee marka u aqri karaa fariintaas uu qofka iga daleediyey haddii aan doonayay inaan aqriyo fariin qofkii ii soo diray marka uu daleediyey inaan dib u sii akhristo waxaan u baahanahay applicationkaasna waxaan kala soo degi doonaa play storeka ayaan tegayaa kadibna waxaan kaga soo degayaa application lagu magacaabo notosave waxaan la soo degayaa notosave waad u jeedaa notosave status notification saver ayaa ku qoran applicationka waa soo install garaysanayaa applicationka markaan ku dhufto ujeedaa waa isoo download garaysmayaa halkaas ayaan ka soo dejisanayaa waajudeeda downloadka ayuu wadaa si toos ayuu igugu soo degayaa waajudeeda daatwanuu maraa waajudeedaa uu dhammaan rabaa 8793 ilaa uu ka tago 100% hadda uu soo install garaysmayaa open ayaan leeyahay applicationkan wuxuu iga caawinayaa inaan akhristo fariintii qofka markuu dib igaaga daleediyo si kasta uu daleediyo fariintiisana meeshan ayaan ka akhrisan doonaa applicationkan ayaa ii safe gareyn doono fariin walbo teleefonkayga soo gasho ama la daleediyo ama la iska dhaafo applicationkan wajuudida qaybtan kale ayaa soo gudinaysaa allow ayaa leedahay markaas applicationka oo oggolaanaysa inuu notificationkaada keediyo allow ayaa leedahay meeshaas tig ayaa saaraysaa next ayaa ku dhufanaysaa meeshaan halmaamin inaad tig saarto si uu applicationka kugu shaqeeyo meeshan ayaa tig ka saaraya okay ayaa leedahay allow notosave ayaa lagu dhahay okay markii aan dhaho ayadana allow ayaa leeyahay kadib processkan ayuu marayaa next ayaan leeyahay applicationo waxaa jiro aad rabin xogtooda in lagugu keediyo meelaha muhiimka xogtooda in lagugu keediyo aad rabtid ayaa tig saaraysaa balse aniga kulli waa wada saaranaya waxaan leeyahay kulli waan u baahanaa inaad xogtooda ii keediso waxaad u jeedaa emailka iyo gmailka messageska form iyo play music intaba tig ayaan soo saartay all applicationka igu jiro tig ayaan soo wada saaray
markaan tig soo saaro applicationka qaabkan ayuu u soo baxayaa. hadda fariin walba ee laysoo diro inta ayay igu soo dhici doontaa. qofka ii soo dira hadduu doono dib buu u daleediyo, inta ayaan kala soconayaa, inta ayaan ka akhrisanayaa. waxaad u jeedaa applicationkan aad ayuu muhiim u yahay. waxaan sidiisii lamid ah dib ugu dirayaa fariimo taleefankeyga. fariintii markaan u diro way u soo dhacaysaa. fariintii haddii uu fiirsho waa u jeedaa fariimihii hore laga daleediyey, kuwan laakiin waa kuwa cusub. waa kaasaa hi who ayaa loo soo diray, kadibna stickers ayuu u soo dirayaa oo xogaa qosol iyo jactire isugu jiro. inkastoo uun sheegin wax lagu qoslo, haddana dib ayay kala xumaan doontaa, uu daleedin doonaa. waxaad u jeedaa sidiisii lamid ah ayuu haddana u daleedinayaa. qoraalkii uu ii soo diray iyo stickers-ka uu ii soo diray sidii haddaatu u daleediyay saliimada ayuu u daleedinayaa. balse aniga hore ayaa uga gaashaantay oo waxaan isticmaalayaa applicationkii aan soo degsaday oo lagu magacaabo Notisave ama Notisave and Notification Saver. waa kasaaf waxaa ii soo diray wuu daleediyey, qoraaladii wixii ii soo diray dib ayuu u daleediyey. balse aniga waxaan dib ugu laabanayaa applicationkii, waxaana arkayaa wixii oo ii soo diray oo kuwa waxaa ii soo diray, balse inta asiga uu iga daleediyey waxaa ii keediyey applicationka oo lagu magacaabo Notisave. waan application aad muhiim u ah. keliya kuma eko inaa WhatsApp keliya oo kuu keediyo ee mobilkaaga fariin walba oo soo gasho uu kuu keedinaya. waan ku mahadsan tahay daawadashada muuqaalkan. ha halmaamin inaad subscribe saarto channelka. mahadsanid.